baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa maanta su'aalo weydiiyay wasiirka wasaaradda amniga iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka maamulka Hirshabelle kulan ka mid ah kulamada lagu magac daray isla xisaabtanka oo wasaaradda maamulka Hirshabelle lagu yeerayo su'aalaha xildhibaanada ay wasiirku weydiiyeen waxaa ka mid ah amni darada ka taagan wadada isku xirta Jowhar iyo Balcad dhisida ciidamada maamulka Hirshabelle lacagaha amniga loogu yaboohay iyo sida loo maareeyo maxaa hortaagan oo caqabad ah in la sugo ammaanka wadada u dhaxaysa Jowhar iyo Balcad maxaa ka qabatay amniga Hirshabelle intii aad wasiirka amniga aad guud ahaan marka wasiirka maadaama qarashaadkaas 400 ciidan loogu talagalay ay diyaar ahaayeen macaas ilaa iyo hadda in ciidankaas la tababaro maxaa loola jeedaa ama sirta qayaarada ku qarsan xukuumaddu kaleedahay maxay tahay in xildhibaanadu ay keenaan ciidanka booliiska Abdulqaadir Aadan Jaale wasiirka wasaaradda amniga maamulka Hirshabelle oo ka jawaabay su'aalaha la hordhigay ayaa yiri ciidanka wasaaradda ay lahaan doonto sida uu ku soo celinayaa hadda ayaa la bilaabi doonaa in la dhiso wixii ka horeeyay oo la sameeyay waxay noqon doonaa wax Hirshabelle lagu saaciday wadada Balcad iyo Jowhar amnigeeda ay weydiisay waa sax mudadii la soo dhaafay wadada waxaan ku mari jirnay si nabad ah wadanka dhan waa aragtiin maaragtay carqaladda iyo dibka ka jiro waqtigii ugu dambeeyay wasaaradda amniga ee federaalka ayaa xafiiskeeda loogu galay kama dhigno inaan ka jiifannay qorshe cad oo maaragtay ammaanka lagu xaqiijinayo magaalada degmada Balcad iyo Jowhar iyo dhammaan dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa bilaaban doona maalmaha soo socdo waxaa lagu wadaa in maalinta bari ah baarlamaanka maamulka Hirshabelle uu horyimaado wasiirka wasaaradda cadaaladda maamulka Hirshabelle su'aalana laga weydiiyo Fartuun Cabdiraxmaan Aadan Bulsho TV magaalada Jowhar